halkan maanta waxaan ugu soo gaaray gudoomiyaha degmada Jariiman gudoomiye ku-xigeenka xildhibaano anagoo maamulka beesha Seemada soo gaareen islaamka kale oo nala jooga odayaasha waxa garadka nabadoonada waa salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi meeshan Puntland xoolaheedii meel kasta ha joogeen degmo kasta ha joogeen gobol kasta ha joogeen waxaanu isleenahay hadda anagu aqraay ahaan ma aanu tira koobin laakiin wax kama harin baanu isleenahay dalkay soo galeen degmada Jariiman iyo deegaamada ku xeeran oo hoos tagay soo galeen waa soo hayaameen baabuurtu hari habeen ma joogsato hadda waxaan maray dhowr iyo 20 bari baa roobkaasi da'say subaxan saaka oo waqtigan hadda aan joogno bay ugu daran tahay baabuurta soconaysa iyo xooluhu xoolahaas waa la rogaa baabuurtu waa rogaan gaadiidna ma wataanin dadkiina halkaas kamana dhaqaaq karo kamana dhaansan karo wuxuu dhaansadana ma haysto waa ku dhibaatoobeenoo meesha iyo waxay ku soo roorahayaan iyo meesha waxay leeyihiin war waxana la siiyo war biyahana la siiyo war waxaan u baahanahay hana la siiyo war baahi badan baan qabnaa hadee dad soo guurana dhibtooda waa garanaysan oo baabuur meel inta ku rogay aan gaadiid ay uga gurtaan iyo mid ay dhaansadaan midna haysan waxaanu codsanaynaa dawladda Puntland oo madaxweynuhu u sareeyo madaxweyne ku-xigeenka wasiiro gudoomiyaasha baarlamaan gudoomiyaasha gobolada waliba gobolka Mudug waxaanu codsanaynaa halkaas meel bacaad ah oo ilaa 50 kiiloomitir hoos naga jidha baa xoolahaasi isugu tageen haatan lagu rogaya biyana male meesha Seemada matoor ah oo ugu sokaysa hal baabuura u dhaamin jiray baabuurkii meeshaas goortuu jidka hadda inta wax badan buu dhuuniyay haatan u jaba dadkaasi waa qaylinayaan ilaahay baana u maqan baahi badanna waa qabaanin oo biyood iyo mid manfaco kalaba waxaanu dawladda Puntland ka codsanaynaa in la soo gaaro kaalmo lala soo gaaro biyo lala soo gaaro gaadiid mara loo soo diro dadkaasi kaalmay u baahan yihiin waa dawladda dadkeedii shacabka ahaa waxaan isleenahay hagari ma jidee kolon wixii waa soo socda ay ku tala galeen dadkan waa dadka ilo doortay weeye maantana waa baahan yihiin waxaan leenahay gobolka hadii yahay gobolka Mudug aqoon gaar ah ka sii sugayn ayadiina ma hayno inay baabuurna soo gaarsiinayno bal marka uu dadkaas aanu ku dhuunino biyana wax ka liita maanta ma jiraan meesha baahi adag baa ka jirta waxaan u sheegaynaa in kastoo wax badan ay mareen maamulka degmada Jariiman sida gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka konsolka hawl badan ayagoo qabtay waa ay ka tiro badastay annaguna baahidu waana heshay baahidana waxa weeye meelaha macnaha baabuurta hadii ku jeerato oo awal hore uga soo sheekeeyay weeye mar walba baabuurta ku roogayso xogaaga lagu galo ciidaasaa jidha waxaan codsanaynaa mar afraad mar shanaad mar lixaadba baabuurina la soo gaaro biyo macnaha mari ka dhawadada dadku wuxuu ka soo guuray Itoobiya iyo wuxuu ka soo guuray Sool inta u dhaxaysa gaadiidkoodina waa ka soo tagay wixii biyo loogu geeylaha iyo waxay wax ku arrin ku qaadan lahaayeen midna ma haystaan arinta waxaan doonayaa caalamka oo aad iyo aad aan uga codsanaynaa mid biyood iyo mid hadii Ilaahay ku roon yahay waxtarnimo intaba inay keenaaneen oo laga iyo maamulka iyo waxgaradka iyo asxaab aqliga inta waxa la doonayaa ijaaradaha dibadda aqliga inay isla kaashadaan oo maanta halka culays badan baa ka jira inay indhaha aad u fiiriyaan ayaan aad u doonaynaa sidaasaan ku soo dhaweynaynaa hadda marar yaro degmada Jariiman iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ay wax ka aruursheen qayb xabayna soo gaarsiiyeen waa ay ku filaawayeen baahida Ilaah baa soo koobi kara haatanna dadaalkii iyo socodkii waa ku jiraaneen laakiin waxaan doonaynaa
maanta fadhiga in laga istaago oo aad iyo aad socod dheer iyo haddii ilaahay kuu ruuxay dhawaaq badan iyo arag badan iyo imaatin badan intaba in la sameeyaa seemada joogtay gudoomiyaha seemada meelo badanna waa u baxdeen oo safooyin badan baa samayseen runtii waxaan rabnaa dadka ama soo guureen ama hadda ganaadeen maadaama ay jiraaneen xanuuno tiro badan oo faafa oo hadda carrada ku jira waxaan rabnaa inaad noo sheegtay bal sarfeynada aad samaysay markii laga soo tago dadka biyo la'aanta raashin la'aanta awrahoodii ay ka soo tageen duruufo badan oo ah haysta ka sukow xagga caafimaad wixii aad ku soo aragteen meelaha badan oo u baxdeen baan rabnaa inaad nooga warantay iyo dadkaas waa soo qaday sida ama caafimaadkoodu yahay ama biyaha u baahayeen ama haddii xagga maaragta noloshooda kale inaanu soo ilmeelno annagoo sidaas ujeedadayoodu tahay waxaan tagnay 5 meelood dadkaas waxa weeye meel magaala maaha dadkaas waxa weeye dadka baabuurtaas udhigaysa wadada dacaadka waa ka sheekeennay dhinaca hoos ah hooseedna dhakoortay ilaa kaalmoone baanu tagnay waxaanu ku soo aragnay dad tiro badan oo dhinacyadiisa daadsan waa waraysanay dadkaas waxaanu nidhi bal ka warrama xaaladdiinnu maxay ku sugan tahay bal xagga caafimaadka ka warrama waan loo warramay waxay yidhaahdeen xagga caafimaadka wax yaryar oo shubana mooyaane waxa baahidayadu u badan tahay biyaha oo aan agaaniid u haysan iyo xagga cuntada oo nin walba haddii ahayd meel ku baqaayo meelo ku baqaa waa ka soo tegey lacagna jeebkiisu ku waday xogaagaan haysanaan waa ka qaatay hadalkooda u badan yahay dadka waa sidaas waxaanu tilmaameen dhinaca xagga oo maaragtay kaalmoone aan ku soo noqonnay meeshaas kaalmoone waxay u jiraan 20 kilomitir bay ka sheegeen meeshaas aan ka warramahay kaalmoone waa meel alaabta waa tan meesha waxay ku taallaa seemade agteeda oo meesha isku soo guuray xoolihii waa ugu jira meesha alaabta wadadaas lagu kacday meesha maryaaka rooba dadka ka yaabanaay xoolo la'aan weeye dadka ciyaarka meesha joogan yihiin waa ka roobay marka hadda aad baan u kala qaaranoo aroortii iyo waxarigiina waa kuwaan arigiina shaaka la kaxiyo gaarigii aanu ku talagalnay gaarigii baa socon waayo ciid galay reer buurta halkoo geeyey wadashadeeda reerkii geeyey buu socon waayo gaarigaas marka waa laga tegey hadda waa nin baa u googooday wax kale oo ariga xay loo kaxay حاجة كسو قرتين كسو عياطي عياطي راكت مادين واقر انت هذا جو قيس باتين امس قيس باتين ما شاء الله واحد شغلنا كالمونة ما dadkan waa dadkii miyiga baadiyaha awrtii haystay oo soo dhaafsanayay magaalada Kaalmar waa la degay tuulooyinka waa hadda awal laba deganay dadkan waa dad cusub insha Allah ayaga waraysan doona caafimaadka iyo xaaladda sida tahay xagga markaas ay u qabatay gabadhii dhakhtarada ahayd ayaa hadda ku maqan oo waraysi ugu maqan shishaan u soconaa barxoolaha iyo sigeena ka waxa la yiraahdaa Kaalmoone وعيل كحجة ديانك سامده لنا هوسه أو لك توفيق أو كفر بكحجة قاعد كان أخيسان وحنا وربحين كويه الله إنه سوس علي إلا أفر إلا 10 ساعة 11 ساعة لو شيء سعره
ودينا بيها توفيق ما بيها كلا إذا كحيل نع كونفرت حلقة عن كسب بين الوسائل ماذا يو توفيق أنت ولا حيسة ومسافة أنت اللي لا بقول كيلومتر سوتشده با dadkaas naf u ah gaadiidku hadda ma wasaaran waa arkaysaa waa dhankaas oo hameyn dhax ku ah meesha uu biyaha geynayo waxa loo baahan yahay gacan laga geysto xalqiga halka isugu tagay sallallahu alayhi sidina maxamed wa alayhi washabihi sallam halkan waxa galabta joognaa meeliya seemade wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada Jariiban Ali Said Cabdinuur Khaliif baanu saaka waxa uu soo baxay degmada Jariiban halkaas oo lagu kala diray wafdiyaal badan oo lagu talagalay inay soo aruuriyaan xogta dadka isku soo hayaamay iyo baahida ka jidha wafdiyagu wuxuu ku ekaa oo aanu gaaray el Kaalmoone la yiraahdo Kaalmoone ilaa muxuu ahaa seemade booc intaana waaxigeeda meel kasta waan istaageynay safar iskama saarayne daqiiqadiiba reer daadsan iyo dad degaya iyo dad meel dhooban iyo caruur iyo intaba sida ku arkaysaanba clipka ama videoga baan ku istaageynay runtii waxa aragtaan mar kasta gudoomiyaha oo ka muuqda seemade waxa halka ka arkaysaan culayska badan oo saaran reer seemade sida loogu soo noqonayo runtii waa indhihiina ku aragtaan waa la isku soo guuray ilaa iyo Soomaaliya Itoobiya Puntland dhamaan waa la isku yimid dadkaasi waxa ugu muhiimsan oo hadda u baahan yihiin horta Ilaahay mahadiis roobkii loo soo guuray dadkii wixii yimid way ku dareereen muhiimada ugu weyn oo hadda halka ka jira waxa weeye biyo la'aan dadkii awrtii ay wili soo gaarin wadooyinkii baawurta u mari jireen oo ciid noqotay dadkii oo kharash iyo hanti ay wax ku dhaamiyaan ahaysan cunno la'aan oo xoolihii hadda xilligan jiilaalkuna ku dheeraaday haddana wili u naqaysan aan waxa u gadmayn halkaas cunno la'aan baa soo fodsaadhay waxa kale oo jira xanuuno waa la isku soo guuray qoomiyad kala duwan ummad kala duwan baa isku timid wadankana xanuunaha ka jira awal hadda iyada laftigeeduna dib bay keento reer kasta oo meel kasta oo ambadid waxa arkaysaa dad baa xanuunsan waftigayo runtii waxaanu aragnay waxyaalo badan dad badan oo liita dad muxuu ahaa meel dhooban dad muxuu ahaa biyaysan dad meel cunno haysan dad meel biyo la'aan runtii waxyaalo badan baanu aragnay waxa leenahay dhammaan baaq u diraya anigoo xibin kamid ah golaha deegaanka degmada Jariiban bulshada Soomaaliyeed dadka muxsiniinta ah dhammaan dawladda Puntland khaasatan runtii baaqyo badan baa naga baxay laakiin khayr badan baa rajaynaynaa waxa rajaynaya dadka in maanta loo soo gurmado la taakuleeyo laga warhayo ceela loo qodo biyo dhaamis la siiyo cunno loo keeno inta waxa laga rabaa intii Ilaahay fiidooga iyo ummadda soo guud arkaysa inta waa laga rabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام maanta waxaan safar kormeer ku nimid oo ku soo noqonay seemade runtii wuxuu ka mid yahay meelaha culaabta aadka u badan ay saaran tahay oo xoolaha badan iyo dadka badan oo ka soo guuray deegaanada kala duwan ee Puntland ay soo gaareen dadku waxay u soo gaareen oo u yimaadeen waa roob Ilaahay baa mahaddaale oo xoolaha wixii roobka yimid wayna ku kifaaxeen waana ku liibaaneen haatan Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ku sii barwaaqoobaan caqabadaha ugu badan oo hadda jira waxa weeye dadkii soo guuray in ay gaadiid wadaan gawaaridii ay soo raaceen oo lacag badan ka qaadeen ay wadada geeskeeda ay dhigayaan gawaarida xoolo badan ay ku soo baktiyayaan reerkii iyo baktigii meel iyo ilmihii iyo carruurtii looga dhigayo dadkaas marka waa dad ahaadee in loo gurmado u baahan oo biyo u baahan oo aqoon u baahan oo meeshii ay fadhiyaan baktigii in laga raro u baahan oo la gubo u baahan oo shaqo marka caqabadda labaad oo jirta waxa weeye deegaanada degmada Jariiban waxaa jira ilaa 3-4 meelood oo aan gawaarida deegaanka ka shaqeeya ay geli karin
waxaa ka mid a meelahaas kaalmoona markii la dhaafo iyo digdigacaasoo dhankeeda dhuurta meel yidhaahdo hal gaari baa joogay halkan oo biyaha halkaa geeya oo biiji ah gaarigii waa jabay ninkii gaariga lahaana tacsi baa ku timidoo aabbihiis baa dhintay shalay in la xabaalay baa la xabaalay allaha u naxariisto kolley gaarigii iyo shaqadiisa mashquul buu gelayaa dadkii iyo ummaddii intaas wajahaddaa deganado u biyadhaaminayana caqabad baa soo wajahaysa iyadoo awalba uusan ku filayn oo ay deysanayeen ama ay biyuhu ka yaraayeen marka gawaari in la helo waa caqabadda ugu weyn annagu waxyaabaha hadda aan karo ama aan dad ka caawin karo ma ahan caqabadda kale oo hadda muuqata fayuujarkana waa dadkan iyo xoolaha saaran hadda xoolihii wixii yimaadaa biyo cabaal waa ka tagayaanoo ilaa bil ama bil iyo bar waxaa laga yaabaa inaysa xooluhu biyo cabin markii xoolaha biyo qabtaan ceelasha ku yaalla deegaanku ceelal ku filan ma aha marka sidii ceelal biyood iyo matooro iyo xoolaha looga fikir lahaa waa caqabadaha ugu waaweyn mid ka mid ah nabadgelyada sidii nabadgelyada maadaama ummad badan meesha isugu timid iyo wacyigelinta iyaduna waa arrin aada muhiim u ah dhakhaatiirta xoolaha iyo kuwa caafimaadka xanaanadii xoolaha iyo isbitaalkii inay yimaadaan hadda meelihii aan maanta soo maray xanuuno badan baa ka jira shuban u badan dadku ama baahida iyo biyahay cabeen ha keeneen ama xanuun kale ha keeneen marka arrimaha noocaasa waa arrimo aada muhiim u ah arrimahaasoo dhan mar walba waxaan baac ugu diraynaa dowladda in ay aada maaragtay ugu feejignaato in wasaaradda caafimaadku ay kormeerkooda iyo dawooyinkii sidii maxaanku rahdaa loo gaarsiin lahaa farmashayaashii iyo meelihii kaydkii oo hadda dhammaaday waa muhiim runtii hay-adaha dawliga iyo taaliyaduhu waa hawla yihiin hawl bay hayaan waxaa hadda soo faar gurmadka ugu badan ama gurmad naf joogis iyo talo iyo habeen iyo maalin inta shacabku ay qabtaan iyo maamulka degmada jariiban intaa iyo in la-eg inka badan qabto oo meeshaan marre iyo xaalad badna garab taagan waa kambaniga wadaagsin kambanigaa wadaagsin meelo badan bay naga saacideen oo dhanka amniga leh oo dhanka wadooyinka leh oo dhaqaale ay ku bixiyeen oo dhanka dibadejinta dadkii soo barakacay ah oo markii labaad hadda lacagteedii deegaanada la gaarsiinayo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtiina dadka reer puntland iyo dadka degmada jariiban iyo gobolka mudug si gaara ayay niyadda ugu haynayaan taariikhduna u xusaysaa kambaniga wanaagsan oo aad u ah kambani ummadda meeshaa degan mar walbaaba u garab taagan dadka qurba joogtu ruuxoodu kaalimay ku jiraan laakiin hadda soo far niman kanada jooga oo jaaliyadda kanada ah oo beeraha deegaanka degan mid ka mid ah baa iyaguna dhaqaalana soo gaarsiiyey oo degmada ku soo diray iyaguna aad bay u mahadsan yihiin waxaan dhammaan rabaa inaan u istaagno arrinkaana soo wajahay deegaankii ku soo siyaaday xoolahaan isku soo guuray in aan annagoo muwaafaqo leh oo maamul iyo shacab iyo culummo iyo kambaniyada intaba inaan ka qayb galno oo aan taladeenna midayno taladaa midaysan baa meel lagu gaaraa reer jariibanna maantay caqabado badan waxay ugu gudbeen oo xilligii abaarta iyo xilligii hadda midnimada ay gabdhihii iyo odayaashii iyo culummadii
iyo dhallinyaradii iyo shacabkii isku meel u taagan yihiin oo gaarigii yimaada midna biyihii la hoostaagan yahay midna cuntadii midna uu gaariga raacayo wax ka dejinayo midna arigii la oodayo taasaa waxay keentay in ay dadkana wax tarto ayagana ay noqdaan shacab ummad naftooda iyo ummadooda wax tari kara reer Seemade aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maamulka deegaanka runtii oo hawl badan ka qabtay wanaag badan baa halkan ku soo socda hadda waxaa ka hawlgalaya saan ogahay laba gruub oo deegaanka soo gaaray reer Seemade waxaan kula dardaarmayaa khilaaf wixii ah xagga iska dhiga horumar u jeesta wixii idinku cuslaada shacab ahaan iyo maamul ahaan nala soo wadaaga degmada sidaa aan idinkugu nimid baan idinkugu imaanaynaa sidaasaan mar walbaaba u wada tashanaynaa laakiin dagaal iyo dood iyo dacwi iyo wax is-hortaag ee Seemade waa ka gudbeen qolada laba qolo oo hadda qolada iskoolka ay ahaayeen qolada maxaan ku idhaahdaa wolfish deegaanadii ay mareen labaduba ammaanta ugu badan reer Seemade ayay u soo jeediyeen soordo waxay yidhaahdeen reer Seemade sida noo ka soo dhaweeyey meel loo ka soo dhaweeyey waxaa rabaa marka qofku magaca asaga abuura magaca wanaagsan inaad abuurataan khalaadyo badan oo dhacay oo mararka qaarkood ku tilmaamo inaad uga gudubtaan runtii maadaama waxa ugu adag ama baahida ugu badan oo deegaanka ay tahay biyo safarkeennan markaan gudoomiyaha deegaanka iyo maxaan ku radaa guddigiisa aan la kulannay waxaan isla qaadanay inaan ceelka la yidhaahdo Kaalmoone oo xabaalan xoolihiina degeen dadna hadda degay inaan ceelkaas aan ceelashaa qodno ceelashaa inaan qodno si kastoo aan u qodi karno iyo kharash qaadanayso si xoolahaasi aliisi ay noqdaan biyaha iyo baahida biyooda jirta ay qaybka uga qaadato oo xoolaha Seemade ku hooseeya ay qayb biyaha uga qaataan insha Allah wuu howlgalaynaa haddii alla idinka dhigana wiigaan gudihiisa waxaan jeclahay hawsha ceelka inaan bilowno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.